Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Maanta waxaan sameynaynaa calanka beesha Gaaljecel. Calankani hadda maro ayaan ku buufinayaa dirac, garbasaar, go, fanaanad, koofid iyo calamada caadiga oo bobiska ah. Calankan waxaa iga soo codsaday mid ka mid ah dadka customer-ka ah oo maaragtay ila shaqeeyo ayaa calanka iga soo codsaday, wayna iga codsadeen. Calankani intaanan aan jarjarin oo sidaan aan ka dhigay ka hor computer ayaan ku design gareeyay. waan idin tusi doonaa qaabka computer ugu design gareeyay. Runtii calankan saad aragtaanba wuxuu ka kooban yahay laba geel iska soo horjeedo, xidiga iyo magaca Gaaljecel. Akhyaarta ila socda casharka dambe. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Akhyaar maanta waxaan rabnaa inaan sameyno calanka Gaaljecel. Waxaa furaysaa Windows, kadib Word aad furanaysaa. Markaad Word furato waxaa kuu soo baxayo page cadeen ama warqad cad aad markaas rabto inaad ku sameyso calanka adiga aad doonayso. Marka calanka aad sawirto waxyaalaha markuu soo baxo cancel iska dhigo okay dheh. Kadib page-ka blank ku soo baxay insert aad tagaysaa. Kadib waxaad tagaysaa shapes, kadib rectangle ayaa soo qaadanaysaa. Marka rectangle soo qaadato kadib halkaan saas ugu xariiqaysaa rectangle-ka. Color-kan blue automatic uu soo baxay koro oo durjini. Kadibna color-kii rabtid ayaa saaranaysaa. Saa page ku wada aragto zoom out aad dhigaysaa page-kaagi, color-kaad u dooranaysaa. Color-ka noocaas ka dhiganaysaa. Okay. Color calanka waxa waaye blue light, waaye blue dark, maaragta blue-gaan ay badan dadka qaar jecel yihiin. Xogaa color-ka waad ku celinaysaa oo xogaa mid yar soft ah ka dhigi. Blue-ga daciif noocaas oo kale ka dhiganaysaa soo maaragta. Kadib waxaad aadaysaa shapes-ki ayaa markaas dib ugu noqonaysaa. Haddii aad rabtidna copy aad dhigi, tusaale markaa rabto inaad kiisa kale aad sawirto calanka. Laba xabo aad rabtaa inaad sawirto, copy paste aad ku dhufanaysaa. Marka laba xabo sawirto, laba xabo ayuu kuu noqonayaa. Waa aragtaa calanka. Marka calankan dhinaca hoose waa madow. Soo maaragtin color madow ayaa saaran. Color-ka madowga ayaa dooranaynaa. Marka color-ka madow ku dhufato kadib waxaa kuu soo haray wixii gudahan ku dhex jiray. Haddaba color-kan blue-ga waxaa ku dhex jira xidig iyo laba geel ah. Laba rati oo geel ah iyo xidig, ama rati iyo hal iyo xidig ku jiraan. Kadib shapes aad dooranaysaa, xidigta markaas soo gelinaysaa. Xidigtaada color-keeda wuxuu noqonayaa mid blue ah. Kadib color-ka automatic ayaa u dooranaysaa white, background white ka dhiganaysaa. Kadibna outline-kana outfill ka dhigaysaa. Kadib hadda waxaa noo haray inaan soo gelino calankii geela. Geela se u soo gelinaa waay marka. Hadda geelan soo gelinaynaa. Geela markaad rabto inaad soo geliso insert picture ku dhufanaysaa. Kadib geela halkaan ka raadinaysaa. Calamo badan inta ku jiro geel badan oo design Google aan ka soo dejiyay. Kaasoo kala ku dhufanaysaa ama midkaas hadda aad u jecel yihiin. Geela waa noocan. Kan markaasaan u soo geliso kadib geelkan in front text ku dhufanaysaa oo calanka hortiisa u imaado. Kadibna waad crop gareynaysaa. Ama waxaad sameyn kartaa geelan Photoshop aad geenaysaa si aad u soo sameyso geelan sawirkiisa PNG geeyna ka hor size kor waa yareysanaysaa. Geela meesha markaas ku habboon ayaa geenaysaa. Waxaad tagaysaa in front text. Kadib marka in front text la size ku waa yareynaysaa. Afar gees ayuu lahaana sawirka. Marka geeska xiga dhinaca bidix ama midig ka soo qabanayso hal mar ugu yaraado. Waa aragtaa geel wuxuu saaran yahay midig, midka kalena bidix ayuu saaran yahay. Marka saa darteed waxay noqonaysaa geelan inaan Photoshop dib ugu celino oo background-kaas cadeenka aan bixino. Hadda midkan pink isku bedelay. Waa bedeleynaa marka Photoshop direct u tagaynaa casharka Photoshop inta ka sii galaynaa sidii PNG loogu dhigi lahaa geela, ariga, lo'da, galeerka iyo waxyaalo fara badan aad rabto inaad hor keento sawirka. Waa minimize gareynaynaa. Kadibna waxaan furanaynaa Photoshop CS6 ama CS7. Midkii markaas kuu fudud aad furanaysaa. Photoshop markaad ku dhufato waxaa kuu furmaya Photoshop-ka. Kadib page ugu aado blank ah. Waxaad soo gelinaysaa file ID open. Kadib waxaad raadinaysaa sawirka geelka. Sawirka geelka waan soo download gareynay. Kadib hoos u baxaysaa. Geel sawirkiisa waa kan kor u bax. Okay, waa kan waa ku dhufanaa waan soo insert gareynaysaa. Geel sawirkiisa kuu soo galay. Kadib waxaad ku dhufanaysaa select tool. Kadib automatic ama magic tool ku dhufanay. Kadib
waxaa aadaysaa layer markaa aado layer halkan uu ku jiraa waa ka layer kadibna double click adii okay ku dhufanaysaa kadib png-ga delete taabanay keyboard-ka aad delete ka taabanaysaa kadib png-ga background saas ku baxay waxaad tagaysaa haddana file sawirkan save gareynaynaa si aan ugu save gareyno png ahaan save as ku dhufanaysaa kadibna halkan option-kaas taabanaysaa kadib png ku dhufanaysaa kadib magaca waxaa ku qoraysaa markaas oo geela leh geel oo kale kadibna okay sawirkaas ku save gareysay waa iska minimize gareynaynaa markaa minimize gareyso sawirkaagi waxaa dib ugu noqonaynaa marka documentigii oo word-ka ahaa saa ogaada kadibna waxaad raadinaysaa file-ka meesha ku save gareysa ama wuu furan yahay maximize-ka taskbar uu saaran yahay sawirka ku dhufanaysaa change picture dhehaysaa marka change picture kadibna key background-ka aan isticmaalayna png-gaas oo open gareynay kadib background-ka cadeenka sidaas ugu baxay sawirka waa koobina laba xabaad ka dhigaysaa control plus drag ama control plus c aa isticmaalaysaa sawirka geela markuu ku hagaago meeshii rasmiga loogu talagalay uu ku tago kadib right click aa dhehaysaa marka right click waxaa dhihi control plus drag oo copy paste oo shortcut waay kadibna rotate aadaysaa kadibna ascending aa dhihi oo dhinaca kale u soo horjeedinaysaa haddii aragtaa geela labada geelo iska soo horjeeda oo xidigana dhexda uu ku jiro waa calanka calaamada astaanta u gaar ah beesha waxa waaye gacal jecel astaantooda waa labada halaad iyo bishaas waaye marka waxaan kaloo dhahaynaa si hadhow sawirkan oo magaca ugu qorno insaada ku dhufanaysaa kadib waa aad dalbanaysaa qoraalka ugu qurux badan soo dooranaysaa kaas oo kale qoraalka markaa soo doorato ku dhufato waxa ku soo baxa halkan kadibna waxaa ku qoraysaa markaas magaca oo calanka oo gacal jecel okay gacal jecel markaad qorto waxaa sawirkaas markaas gacal jecelkaaga ugu qorto kadib waxaad sameynaysaa waxaad ku noqonaysaa waxaa la gareynay size-ka kadibna waa weynaysanaysaa afarta dooranaysaa qoraalka font size-ka kadibna font size-ka waa weynaysanaysaa shape out waxa waaye qoraalka border oo leeyahay borderka outfill ka dhiganaysaa kadibna waxaa la rabaa inaad soo jiido oo kadib la imaato meeshii oo geela yaalay calanka xidiga geela iyo calanka balaaga dhexdooda okay kadib waxaa sameynaa highlight gareynaysaa marka highlight gareynayso waxaa la rabaa page-ka magacan la ogeysiisid calanka aad u farta aad u yar waaweyneyni kadibna waxaad tagaysaa home size-ka oo calanka oo qoraalka xarfaha noqo oo gacal jecel kor u weyneynaysaa kadib wax yar ku dari waan ku yara dare si size-ka kugu hagaago markaas waxaa la rabaa inaad isku dheelitirto ma fahmin marka saana isku dheeli hadda calankii oo gacal jecel oo nadiif ah waa kana waxa gabdho oo asxaabta oo saan iga soo codsaday inaan u sameeyo kadib border yar oo sameeyay oo frame-ka black frame-kaas oo sameynaysaa oo frame-ka qaar badi calaamad uu ku qurxan yahay outfill-ka horta waxaa ka dhigaya no fill kadib border-kana black ka dhiganaysaa size-kan waa yareynaysaa